بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال كلنا كان وحين كجاه للدونا إن شاء الله تعالى عيدك أحكام تيسا يا آداب تيسا. عيدك وامد كم ده حيالها إلهي شرعي سبحانه وتعالى رسول كنا عليه الصلاة والسلام من براي. ciidku waa muuqaal ka mid ah muuqaalada islaamka iyo muslimiinta oo meesha laga ciidayo ciidka laga oogayo waxay ku tusinaysaa inay tahay beled islaam oo dad islaam iyo muslimiin ay degan yihiin oo ciidda iyo aadaanka salaada la aadimo iyo xijaabka gabdhuhu xijaaban yihiin iyo waxyaalaha noocaas oo kala waxa la dhahaa waa shacaa'irta islaamka oo loola jeedo waa muuqaalada islaamka ee ku tusinaya meeshaas inay bulsho muslim ah oo islaamihi degan tahay. marka ciidu waa wax weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta ugu deeqay. laba ciidood bay leeyihiin muslimiintu oo sanadla ah iyo hal ciid oo isbuucla ah. labada ciidood ee sanadlaha ay mid waa ciida fitriga oo hadda inagu soo aadan marka Ramadaan dhamaato, midna waa ciidul adha oo marka xajku gabagabada joogo maalinta tobnaad ee bisha muharram ee bisha dhilhijja la ciido. labadaba waxaa lagu beegay laba cibaado oo waaweyn ama laba rukni oo arkaanta islaamka ka mid ah oo la dhameynayo. in marka laba rukni lagu khatimay labada ciidood waxay ku tusinaysaa ciidu inay tahay ayada qudheedu cibaado. farxadda la farxaya cibaado ah, isu soo baxa la isu soo baxay la tukanayo masaajidda iyo musallayaasha lagu tukanayo la tagayo ayaa cibaado ah. xukunka salaada ciidku waa fard kifaaya culimada qaarkood waa fardul ayn. qowlka muctamadka madhabka imaam shaafici rahimahullahu ta'ala waa sunna muakkada, waa sunna la adkeeyay weey. marka sunnaha la adkeeyay qofku inuu ilaaliyo rasuulku kaleey salaatu wasalaam waa joogteeyay ma sugna marna inuu ka tagay nabiga kaleey salaatu wasalaam ayadoo la og yahay rasuulku wuxuu soomay 9 Ramadaan ayuu rasuulku soomay kaleey salaatu wasalaam. marka waxa la rabaa qofku inuu joogteeyo oo uu gutaa la doonaya. masaajidka in lagu tukado iyo in garoonka la aado labaduba waa bannaan yihiin. madhabka imaam shaafici waxaa fadli badan in masaajidka lagu tukado waayo masaajidka buqcadu fadli iyo dheeraad bay wadataa. marka haddii masaajidku masaajid weyn yahay oo dadka qaadaya in masaajidka lagu tukado baa fiican. hadduu masaajidku cadhiidhi noqdo oo ay noqoto in markaa garoomada la aadana in la aadaa fiican. waqtigeedu waa markay qorraxdu soo baxdo oo waxoogaa ay kor noqoto qadra rumxin ilaa waxoogaa maaragtay rubcu saac oo kale ama nus saac oo kale markay qorraxdu soo jeedo ayay gelaysaa waqtigeedu gelaya ilaa waqtiga zawaalka laga gaadho ee qorraxdu ka zuulaysa. waxaa la sunneeyaa labada ragcadood marka la tukanayo nabiga kaleey salaatu wasalaam suurado kala duwan baa ku soo arooray inuu tukan jiray. waxaa soo aroortay inuu nabigu akhrin jiray suuratu qaaf iyo suurat alqamar iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar. labadaas suuradood inuu rasuulku akhrin jiray kaleey salaatu wasalaam baa sugan. waxaa kaloo sugan rasuulku kaleey salaatu wasalaam inuu akhrin jiray suurat sabbix isma rabbika alaclaa iyo hal ataaka xadiidu lghaashiya, suuratu alcalaq iyo suuratu lghaashiya, suuratu lghaashiya suuratu alaclaa inuu rasuulku akhrin jiray kaleey salaatu wasalaam. sunnayaasha la rabo in la ilaaliyo waxaa ka mid ah inay salaadu noqoto qabla alkhudba, khudbadda ka hor inay noqoto. waa sunnayaasha la rabo in la ilaaliyo oo macnaheedu waxa weeye taas inta aan khudbad la gelin in marka hore la tukado, marka la tukado kadibna imaamku khudbeeyo saasaa la doonaya. waxyaalaha muslimiinta waqtigan dambe lagu ibtileeyay oo in khudbado badan iyo sheekooyin badan iyo wacdiyo badan laga horeysiiyo salaada markaa kadibna la tukado haddana khudbad kale la akhriyo waa mukhaalifa lisunna nabawiya. sunnadii nabiga kaleey salaatu wasalaam arrin khilaafsan weeye. sunnada nabigu waxa weeye in la tukado kadibna la khudbeeyo. aadaabta la rabo in la ilaaliyo waxaa ka mid ah qofku inuu soo qabaysto markuu aadayo salaada ciidka inuu soo qabaysto isagoo nadiif ah oo hadduu heli karo wuxuu isku soo udgiyo inuu soo aado. inuu aado meesha dadka muslimiinta ay ku tukanayaan ama masaajid ha ahaato ama musallaha iyo bannaanka garoomada lagu tukanaya ha ahaato inuu kala qayb galo muslimiinta ayaduna waa sunno wanaagsan weeye.
inuu jidkuu sii maray mid aan ahayn ka soo laabto, markuu sii socdona waddo sii maro, markuu soo laabanayana waddo kale soo maro. rasuulkay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam, waa sunnihii nebiga inuu sameeyo baa fiican. ciidku haddii uu yahay ciidulfitrigan ramadaanta ka dambeeya, inuu timira sii cuno, dhowr xaboo timira, 3 xabo ama 5 xabo istiro isdheera ayaa sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam. hadday tahay ciidul adxada ahna isagoo af haysta oo waxba cunin inuu aado baa fiican. takbiirta inuu akhriyo oo uu takbiirta baa fiican, oo waa sunnaday ka mid tahay iyaduna. dharka ugu fiican uu heli kara inuu xidho oo sii labisto asagoo qurux badan oo labisan aw aado ayaa la doonayaa. marka taasna waa sunnayaashii weeyaan. kulan dambe oo kulankan daba socda ayaa waxaynu kaga warrami doonaa waxyaalaha khaladaadka ah ee dhaca bisha ramadaan marka laga baxay ciidka la gaadho ee la rabo inay muslimiintu ka digtoonaadaan ayaynu insha allahu tacaala kulanka dambe kaga warrami doonaa.